kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida ee YouTube channel-keena Captain K qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Rooble oo xaraga ka jaray dugsiga beeraha ee degmada Balcad howlgallo laga sameeyey deegaano u dhow magaalada Beledweyne iyo faahfaahin laga helay qasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho guddiga doorashooyinka galmudug oo diiwaan gelisay musharaxiinta aqalka sare intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon ee wararka Soomaalida ee YouTube channel-keena Captain K fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe dheggan baleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya ee hela wararka iyo warbixinadeena like na saar si uu muuqaalkan dad badan u gaaro wixii fikrada ana qaybta commentiga noogu reeb mahadsanidin aynu ku bilownay Ra'iisul Wasaare Rooble oo xaraga ka jaray dugsiga beeraha ee degmada Balcad Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xaraga ka jaray dugsiga beeraha ee degmada Balcad oo dhawaan laga hirgeliyay degmadaasi Ra'iisul Wasaare Rooble iyo wafdiga uu hogaaminaya oo ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawa ayaa maanta gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee degmada Maxamed Xuseen Rooble ayaa xaraga ka jaray dugsiga beeraha ee degmada Balcad oo dhawaan laga hirgeliyay degmadaasi isagoona xusay in arday badan ay ka faa'iidi doonaan culumta beeraha dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu mahadceliyay odayaashii iyo guddigii isu xilqaamay badbaadinta warshadii dharka ee Balcad kadib kulan uu maanta kula yeeshay degmada Balcad faahfaahin ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxna oo ahaa gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada aada Villa Baydhabo qaraxa ayaa waxa la sheegay in lagu weeraray kolonyo ka tirsan AMISOM ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan AMISOM iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka wararkan ka helayna ayaa sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 2 ruux oo shacab ah halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ay dhamaantood wadada marayay sidoo kale wararku intaasi ku darayaan inuu burbur soo gaaray mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM ee qaraxa lagu la eegtay iyadoo dadka ku dhaawacmay qaraxa la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho waa qaraxii labaad ee maanta ka dhaca magaalada Muqdisho iyadoo barqadii maanta ciidamo ka tirsan dawladda hoose qarax miina lagu la eegtay agagaarka Ceelqalow ee degmada Wadajir dhanka kale magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa maanta ka dhacday diiwaangelinta musharaxiinta labada kursi ee aqalka sare ee ugu harsan dowlad goboleedka Galmudug guddiga doorashooyinka ayaa diiwaan geliyay 4 musharax labada kursi ku tartami doona maalinta Sabtida ee soo socota ayaa waxaa la filayaa in xildhibaanada golaha wakiilada Galmudug ay doortaan 4 kursi ee aqalka sare ugu harsan maamulka Galmudug dhanka kalena howlgal laga sameeyay deegaano u dhow magaalada Beledweyne timaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolkaasi Abuukar Cabdullaahi Maadi mas'uuliyiin ka tirsan degmada Beledweyne ayaa maanta sameeyay howlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab howlgalkan ayaa maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidamada deegaanka ee is abaabulay ee macawiisleyda waxay ka sameeyeen tulooyinka Jabaro Bitaale iyo Ceelka Baar oo dhanka galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maadi ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in tuulooyinkan ay ahaayeen kuwa nabdoon oo ka cagan Al-Shabaab maamulka gobolka Hiiraan isagoo ka duulaya muhiimadda ay leedahay ka shaqeynta amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxa uu dardargelin doonaa sidii loo sugi lahaa ammaanka guud ee gobolka Hiiraan si shacabka ay u sii dareemaan xasilooni dheeri ah dhinaca kalena madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ayaa kulan gaar ah ku yeelanaya magaalada Garowe maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland inay kulan gaar ah ku yeeshaan magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago magaalada Garowe si uu kulan ula yeesho Saciid Cabdullaahi Dani labada madaxweyne oo xulfo gaar ah ayaa qorshuhu ahaa inay ku kulmaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya balse Saciid Dani oo ka baaqday wuxuuna kulankooda Garowe uga arinsan doonaan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Garowe waxa uu kulan la qaadan doonaa xubno ka mid ah golaha wasiirada Puntland isagoona kala hadli doona wada shaqeynta labada maamul ee Jubaland iyo Puntland madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo 4 sano ee la soo dhaafay isku mowqif ka ahaa xaalka dalka ayaa waxa uu khilaaf xoogan kala dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoona dhowr jeer si wada jir ah ugu soo saaray qoraal ay uga soo horjeedaan talaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya
ugu dambeynna Itoobiya ayaa sheegtay inay qabatay Soomaali la shaqeynaysay TPLF. ciidamada booliska federaalka Itoobiya ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen dad Soomaali ah oo la shaqeynayay kooxda TPLF-ta ka dagaalamaysa waqooyiga Itoobiya intii uu socday dhaqangelinta xaaladda degdega ah. ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidanka booliska federaalka ee qaybta ka ah ka hortagga dambiyada iyo taliyaha booliska Addis Ababa ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen ku sheegay in dadka gacanta lagu dhigay kadib howlgallo ka hortagga dambiyada iyo baarista ay sameeyeen iyadoona howlgalkaasi loo fuliyay si waafaqsan xeerka adag. ciidamada federaalka Itoobiya ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa ay dagaalo adag kula jireen ciidamada kooxda TPLF iyo xulafadooda. hase yeeshee kooxda TPLF ayaa gacanta ku dhigtay magaalooyin ay ku sugnaayeen ciidamada federaalka Itoobiya. guud ahaanna waa naga intaa wararka Soomaalida ee YouTube channelkeena Captain K tan iyo war mid ka lamid ah intaan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.